warbixin ku saabsan taariikhda koobka qaaradda Afrika tan iyo markii la aasaasay ama la bilaabay in qaramada Afrika ay ciyaaraan kubadda cagta ayaa waxaa markii ugu horeysay tartankaasi kubadda cagta koobka qaaradda Afrika ka qayb galay wadamo dhowr ah iyadoo ay halkaasi ay ku soo bandhigeen ciyaaro aad u qiimo badan halkan ka ogow kooxaha iyo xulalka wadamada Afrika sida u kala hanteen iyo sanadka ay ku kala guuleysteen koobka qaaradda Afrika waa kuma xulka ugu awood badan uguna hanashada badan koobka qaaradda Afrika. koobka qaaradda Afrika ayaa si habsami leh loo soo gabagabeeyay iyadoo xulka qaranka ee Senegal loo caleemo saaray taajka guusha waa kooxda sanadka hanatay guusha koobka tartanka kubadda cagta ee qaaradda Afrika maadaama ay ku tartamayeen xulal dhowr oo ka wada tirsan qaaradda madow ee Afrika. haddaba si aan wax badan u ogaano tan iyo markii la qabtay tartanka kubadda cagta qaaradda Afrika sanadku markuu ahaa 1957 waxaa markii ugu horeysay koobkaasi gacanta ku dhigay kooxda Egypt waxayna final wada ciyaareen dalka Ethiopia. Masar ayaa 10 lama ilaabaan u dhigtay dalka Ethiopia waxayna sidaasi ku hanatay koobka iyadoo sanadkii labaad ee la qabto tartankaasi Egypt mar labaad oo xiriir ah ku guuleystay in ay koobkaasi hantaan waxayna 10 sidoo kale lama ilaabaan u dhigeen xulka dalka Suudaan. dalka Ethiopia ayaa tiri maadaama 2 sano oo xiriir ah horteeda lagu qaatay markaan saddexaad aniga ayaa ku xaq leh. sanadku markuu ahaa 1962 Egypt ayaa waxa ay dhadhan siisay guuldarada waxa ay tahay Ethiopia ayaana sidaa ku hanatay koobka qaaradda Afrika. 1963 Suudaan ayaa loo diiday inay mar kale gacanta saarto iyadoo final ay isku arkeen xulka Ghana sidaasna ay ugu suurto gashay xulka Ghana in ay ku hanato koobkii. 1965 isla Ghana ayaa ku guuleysatay markeedii labaad oo xiriir ah. xulka Congo DR ayaa waxaa sanadkii ugu horeeyay markii ugu horeysay koobkaasi ay ku guuleysato finalna ay timaado. 1968 waxaa u suurto gashay inay mar uun gacanta ku soo taabato koobka qaaradda Afrika. 1970 Suudaan oo in ka badan 20 sano silac iyo rafaad ugu jirtay mar uun sidee u hanan lahayn koobka qaaradda Afrika waxayna sidaa ku hanatay koobkii qaaradda Afrika. 1972 Congo ayaa waxa ay ka qaaday Mali. 1974 Congo DR ayaa waxa ay mar labaad ku guuleysatay koobkaasi iyadoo Zambia u diiday in ay suurtagal u noqoto inay koobkaasi hanato. Congo DR ayaa loo caleemo saaray taajka guusha. 1976 Morocco ayaa ku marxabeysay hanashada koobka qaaradda Afrika iyadoo Gani ay u diiday inay gacanta saarto koobka. Morocco ayaa tiri aniga ayaa muddo raadis ugu jiray koobkan Gani gurigaaga ku laabo. 1978 Ghana oo geesiyada Afrika loo qiray ayaa waxa ay muujisay karti iyo ciyaar wanaag iyadoo xulka Uganda dhadhan siisay guuldarada waxa ay tahay. 1980 waxaa hurdada ka soo toosay waa xulka Nigeria sanado badan ayaa hawaabsaneed waana markii ugu horeysay ay final timaado. 1982 Ghana ayaa guul weyn ka gaartay xulka Libya waa markii ugu horeysay ay Libya final soo higsato. 1984 Cameroon ayaa tiri haweysan hunguri uusan ka galin xulka qaranka dalka Nigeria ayaa waxaa la tusay awood dheeraad ah iyadoo Cameroon ay muujisay ciyaar wanaag aad u qiimo badan. 1986 Masar ayaa Cameroon tiri dhakhtar miyaa ku qoray koobka inaad mar labaad oo xiriir ah ku guuleysato ma ka aqbalayo. 1988 Cameroon ma quusan manakani jabkii iyo falxumadii ay xulka Masar marsiisay mar kale ayay dib isku soo abaabushay iyadoo gacanta ku dhigtay koobka qaaradda Afrika waa 88. 1990 Algeria ayaa 10 u dhigtay Nigeria waxayna ka aarsatay guuldaradii 4 sano ka hor. 1992 Ivory Coast ayaa markii ugu horeysay waxa ay soo higsatay final iyadoo koobkana ka qaaday xulka Ghana waa ay dadaaleysaa. 1994 Nigeria ayaa safarsiisay Zambia kadib koobkii sidaana ku qaaday. Nigeria waxa ay soo bandhigtay sanadkaasi ciyaartooy aad u wanaagsan isla markaana xirfadooda ay aad u sareyso. 1996 South Africa ayaa si lama filaan ah final u tagtay waxayna 30 sano marqaati ka ahayd ama safar ugu jirtay raadinta siday koobkan mar uu hanan lahayd. 1998 South Africa sida kuma akaanin waxa ay mar labaad muujisay dadaal dheeraad ah waxa dadaalkeeda u diiday isla markaana dhabarka jabshay xulka Egypt. 2000 waxa koobka si awood ah ku qaaday xulka Cameroon iyadoo awood iyo
xirfadba u sheegtay xulka Nigeria sanadkii 2002. Cameroon ayaa mar labaad oo xiriir ah ku guuleysatay hanashada koobka qaaradda Afrika sanadkii 2004. Tunisia ayaa markeedii ugu horeysay koobkaasi hanatay iyadoo dhowr jeer final ay timid, balse ay sanadkaasi si silac iyo rafaad ah ku qaaday koobka iyadoo cashir u dhigtay xulka Morocco. 2006 Masar ayaa Ivory Coast bye tiri waxaana koobka sidaa ku qaaday Masar ayaa mar labaad waxa ay labeysatay oo xiriir ah koobka qaaradda Afrika waa sanadii 2008. 2 sano oo xiriir ah ayay Masar markaasi ku guuleysatay, intaa kali kuma ekaan markii saddexaad oo koobka la qabtay ee 2010. Masar waxa ay saddexeysatay koobkii qaaradda Afrika 3 sano oo xiriir ah. Sanadkii 2012 Zambia ayaa markii ugu horeysay koobkaasi hanatay iyadoo Ivory Coast sabarsiisay waxayna tustay guusha waxa ay tahay guuldarada. Sanadka 2013 Nigeria ayaa bye tiri Burkina Faso si lama filaan ah. Kadib markii si lama filaan ah ay final ku timid Burkina Faso, Nigeria waxa ay muujisay dadaal dheeraad ah. Sanadka 2015 kooxda xulka qaranka Ivory Coast ayaa gacanta ku dhigtay koobka iyadoo ay ka qaaday Ghana ayaa muujisay ciyaar aad u qiimo badan, inkastoo Ivory Coast ay diiday iska caabinta ay Ghana muujinaysay, balse sidaa ay guuldarada ku qaadatay xulka Ghana. 2017 Cameroon ayaa Egypt ka qaaday koobka qaaradda Afrika maadaama ay dhowr jeer final isku arkeen. Sanadkii 2019 Algeria ayaa Senegal ka qaaday koobka qaaradda Afrika iyadoo Senegal sabarsiisay kadib markii xidigooda Mahrez uu gool cajiib ah ka dhaliyay kulan ay final isku arkeen Algeria iyo Senegalna sidaas ayay guuldaradii ku qaadatay. sanadkii 2020 tartanka kubadda cagta qaaradda Afrika waxa uu baaqday cudurka COVID-19 awgii. dhamaadkii sanadkii 2021 ayaa tartanka koobka qaaradda Afrika dib u furmay iyadoo sanadka 2022 loo caleemo saaray championka kooxda qaaradda Afrika xulka Senegal oo lama filaan ugu qaaday kooxda Egypt kooxda ugu guulaha badan koobka qaaradda Afrika.